waxaan u mahadnaqayaa dawladda Israa'iil ee ictiraafkeena siisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa duwalka kale caalamkana waxaan ugu baaqayaa inay siday Israa'iil u ictiraaftay Somaliland ay u garatay xaqqa dastuuriga xaqqa sharciga xaqqa bini'aadantinimo ee gooniga ah inay Somaliland ay u ictiraafaan dacaayadaha la fadinayaana waa dacaayado iska raqiisa oo waxba ahayn wahagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay garoonka weyn ee Hargeysa Stadium halkan waxaa ku sugan mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa maayir soo dhow bal ka waran dareenkaaga maanta wallahi walaal dareenkayga maanta lama qiyaasi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay qaranka jamhuuriyadda Somaliland shacabka reer Somaliland midnimada iyo walaaltinimada ay muujiyeen iyo garab istaagga qarankooga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacab weynaha reer Hargeysa oo maanta garoonka Hargeysa Stadium ku soo muujiyay dareenkooga qarannimo wadaniyadeed dal jacayl waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo xukuumaddiisa waxaan u mahadnaqayaa dawladda Israa'iil ee ictiraafkeena siisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa duwalka kale caalamkana waxaan ugu baaqayaa inay siday Israa'iil u ictiraaftay Somaliland ay u garatay xaqqa dastuuriga xaqqa sharciga xaqqa bini'aadantinimo ee gooniga ah inay Somaliland ay u ictiraafaan waxaanu Ilaahay ka baryaynaa 34 sano ee aanu jirnay iyo in ka badanba inay ictiraafku aynu ku noolno nabad aynu walaalaheen iyo jaararkeena kula noolno aad iyo aad baad u mahadsantiin shacabkeygana fariinta dhinaca amniga waxa weeyaan xaaladahan oo kale waxaynu ka gudubnay sidii hore ma nihin maanta waxaan shacab weynaha u dirayaa fariina inay amnigooga ilaashadaan inay feejignaadaan inay cid kasta il gaara u yeeshaan cadowgeenu maanta waa badan yahay sidii hore maaha dalkayga iyo dadkaygaba waxaan leeyahay midnimo aynu muujinno shacabkaygana waxaan leeyahay midnimada qaranka aynu muujinno madaxweynaheena qarankana aynu garab istaagno aad baad mahadsantihiin xogeeyaa dawladda soo dhow xogeeyaa bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn ilaahay baa mahad iska leh maanta waa maalin weyn oo qaranka jamhuuriyadda Somaliland ku weyn waxaan hambalyo u dirayaa iyo boogaadin shacbi weynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan shacbi weynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo saaka garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ku muujiyay shucuubtooda iyo dareenkooga qadiyadeed ee jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo xukuumaddiisa oo dadaal muddo xileedkoogii koowaad geliyay inuu dalkan ictiraaf helo muddo 34 sano uu ka mid noqdo dunida caalamka waxaan leeyahay shacbiga maanta waa maalin weyn waxa la doonayaa inaynu ku faraadeegno dawladaha adduunkana waxaanu leenahay waa arkaysaan Somaliland halkay marayso dalka waxaan u mahadnaqaynaa oo kale dalka Israa'iil oo sameeyay geesinimo ku dayasho mudan dunida caalamkana waxaan leenahay sida Israa'iil ay sameysay insha Allah sameeya dacaayadaha Israa'iil laga fidinayo ee dadka diidana qoyska Somaliland ay ka sheegayaan maxaad iyada ka horreeyay horta Somaliland waa dal madax bannaan dacaayadaha la fadinayaana waa dacaayado iska raqiisa oo waxba ahayn laakiin Israa'iil waxaynu wadaagnay macaamilo sida dunida siday Masar u macaamilaan ee Kuwait u macaamilaan ee Imaaraadka u macaamilaan ee dunida kale u macaamilaan bay dalkan u macaamilayaan iyagoo qof waliba uu diintiisa haysto ayuu si fiican u macaamilaya shacbiga Hargeysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida u soo baxeen iyo degmooyinkaba